Dhammaantiin daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aynu kaga hadli doono ama aynu ku mari doono dariiqyo ka mid a magaalada dhexdeeda ah. Dariiqyadaas oo isugu jira Rashford Links, Forfarstrasse iyo Einbahnstrasse. Dariiqyadaas ayaynu hadda mari doonaa la socod wanaagsan. Dariiqa ugu horeeya ama jidkan inagu xiga ee xagga midigta waa Rashford Links. Gaadhiga xagga midigta ka imanaya ayaa inaga leh, markaa waa inaan iska hubinaa intaana dariiqaa gelin. xagga midigta gaadhiga kaaga imanaya ayaa iskale. Dariiqan aynu hadda ku jirno waa dariiq midig iyo bidix u kala baydhaya. Qaybta bidixda ayaynu raacaynaa. Ishaaradu waa casaan, inaynu istaagno ayaa laynaga rabaa. Bartaas laynka ayaad istaagaysaa ilaa inta ay ishaaradu green ka noqonayso ama cagaar. Marka aad taagan tahay laba ishaaro ayaa kuu muuqda. Ishaarada qaybta bidixda waa qaybta adiga aad u baydhayso. Qaybtan midigtana waa qaybta mataqaanaa xidhan ee casaanka ah, waa qaybta wadada kugu xigta ee midig u baydhaysa, iyagana waa ka xidhan yahay. Innagana xagga bidixda u baydhanana wuu naga xidhan yahay. Baabuurta wadadaas kaga gudbasa ayuu u furan yahay iyo kuwa soo baydhaya. Waxaad u baahan tahay inaad ilaashato ama aad fiiriso qaybta bidixda u baydhasa ee ku khusaysa ishaarada. Wadadan hadda aynu ku jirnaa waa Forfarstrasse, waa meel xaafado dhexdooda ah. Waana Forfarstrasse, waxaanad ku soconaysaa 50 km/h. waxaanad iska ilaalinaysaa dariiqyada waxyaabahaas mataqaanaa dariiqyada loo baahan in la kala istaago ama baabuurtu ay fursad isku siiyaan. Ishaaradu waa green, waan socon karnaa. Haddii ay casaan tahayna waxaad istaagaysaa meesha laynka aynu aragnay hadda. Horteena waxaa ka muuqda baaskiil saad u jeedaan ama bushkuleeti, nin baaskiil wata. Maalinta imtixaanka haddii aad la kulanto waxaad u baahan tahay inaad aad siga taxadirto, ugu yaraan 3 mitirna aad ka fogaato. Kabacdi markaad wadada dib ugu soo noqonaysana aad fiiriso muraayadda ama muraayadda Außenspiegelka ee dibadda ah. Inta midigta ah ayaa lagaa rabaa inaad fiiriso Schulterblick ama daymada garabkana aad samayso si aanad mar labaad isagii dhibaato u gaarsiin. Haddii ay wadadu ciriiri tahay ha isku dayin inaad dhaafto, waayo waxaa laga yaabaa inaad dhibaato geysato ama maalinta imtixaanka aad ku dhacdaba oo aanad fursad fiican oo mataqaanaa aad ku dhaafto aanad helin. Iska daba soco hadday wadadu yar tahay. Haddii aad dhaafi kartana bidix oo isku badi, gaadhiga kaa hor imanayana iska fiiri, kabacdi hore u dhaaf. Meel noocan oo kale ah ha isku dayin inaad gaadhi ama baaskiil ku dhaafto oo aanay kuu muuqan wadadu si toos ah, waayo gaadhiga xagga hore ka imanaya ayaa laga yaabaa inaad isku dhacdaan. Ha isku dayin meesha kurfaha ah ama weecadka aan la arkayn inaad gaadhi ku dhaafto. Hore waxaa kasoo muuqan doona Kreisverkehr ama roundabout, waa meesha kala wareega ah ee sida goobada u samaysan. Waxaa lagaa rabaa inaad speedkaaga yarayso, gaarka labaadna aad geliso. Intaa kadib waxaa lagaa rabaa inaad iska fiiriso gaadhiga gudaha ku jira oo isagu kaale. Markaad ka baxaysana xagga midigta birbidhaha u shido ama blinkerka. Markasta qaybta midigta ayaa looga baxaa, waxaa lagaa rabaa inaad xagga midigta u shidato birbidhaha. Markastana waxaad mudnaanta siinaysaa gaadhiga goobada ku jira ama kaa horgalay, adiguna waad sugaysaa. Mar kale ayaynu gelaynaa roundaboutkii ama goobadii. Markaa waxaa lagaa rabaa inaad geerka labaad geliso, gaadhiga ku jira aad iska hubiso, kadibna aad ka baxdo. Marka aad ka baxaysana xagga midigta aad u baxaysana birbidhaha waxaad u shidanaysaa ama blinkerka qaybta midigta. Goobada dhexdeeda ama roundaboutka gudihiisa lama ogolo inaad istaagto. Wadadan aynu ku jirno waxay ku biiraysaa ama ku darsamaysaa waddo kale oo bidixda kaaga imanaysa. Haddii ay ishaaradu ama ishtaawgu uu badan yahay, halka laynka cad ee aynu soo aragnay ayaad istaagaysaa. Ishaarooyinka qaarkood xaggooga dambe waxaa lagu rakibaa ama la dhigaa kamarad si ay u sawirto gaadhiga dhaafa iyadoo cas. Dariiqan oo kale oo ay dhigeen xagga gidaarka hoostiisa, kamaradaasoo loogu talagalay gaadhiga speed xooga ku dhaafa ama iyadoo cas mara inay sawirto. Haddii aad dhaafto ishaarada oo casna waxay ka dhigan tahay ama ay la mid tahay adigoo qof jiiday ama dhibaato geystay. Fururshaynkagana dhibaato ayaa ku iman karta, waana lagaa qaadi karaa haddii aad ishaaro cas kamaradu ku sawirto adiga oo dhaafay. Hadda waxaynu geli doonaa dariiq Bundesstrasse ama dariiq weyn oo highwayga bridge-ka aynu hoos marno ayaynu dhinaca bidixda kaga soo beeri doonaa. Waxaa laynaga rabaa inaynu geerka saddexaad gelino, gaadhigana aynu awood ku dhaqaajino, bidixdana aynu u shidano blinkerka. 3 baad geysanaysaa, blinkerka xagga bidixda ayaad u shidanaysaa si ay kuu ogaadaan baabuurta kaa dambaysa ee wadada ku jira inaad soo geli rabto ama aad meeshan soo gelayso. Waxaa lagaa rabaa Schulterblick inaad samayso, blinkerka tuurato, muraayadda dhexe aad fiiriso, muraayadda dibaddana aad fiiriso ee bidixda ah, kadibna aad gasho wadada. Hadda wadadii si fiican ayaynu usoo galnay. Markaa waxaa laynaga rabaa inaynu geerka 4 u bedelno, haddana 5 u bedelno. Hadduu 6 leeyahayna 6 aynu usii bedelno, kolba speedka ama xawaaraha aynu rabno inaan ku soconno, waayo wadadan aad ayaa loo socdaa, xoog ayaana loo socdaa. saas darteed waxaan u baahanaa inaan speed xooga ku soconno. Imikana wadada waxaynu uga deganaa dhinaca midigta. Markaa xagga midigta blinkerka u shido,
iskana jir meeshaas waa meel halisa, dariiqaas baabuurka cadi uu marayo ayaa kaale. waxaa lagaa rabaa inaad ka istaagto inta ay baabuurtaasi ku dhaafayaan, kabacdi aad waddada gasho. marka aad waddada gelaysana bilinkarka xagga bidixda u shido, shulta bilig samee ama daymada garabka, kadib gaadhiga dhaqaaji. waddadana waa waddo 100 loogu talagalay. waddada markaas sida waxaad u soconaysaa xawli ah ilaa 100 km/h. speedka afraad, shanaad, lixaad baad iska gashan kartaa ama aad ku socon kartaa. haddii aad rabto waddadan inaad ka baxdo, waxaa lagaaga baahan yahay inaad bilinkarka xagga midigta u shidato, iskuna diyaarisa inaad baydho. calaamadan fallaarta midigta ku sawiran aad waddadeeda gasho, tartiibna u socoto, geerka saddexaad aad gashato maadaama aad baydhaso oo aanad lagaaga baahanin xawli badan. calaamadii iska jir ayaa xaggaa kaaga muuqata akhtun. waddada halkaa bidixda kasoo galaysa ayaa kaale, iska fiiri, hore ugu soco. magaalo ayaanad gashay. markaas magaalada waxaa lagu socdaa 50 km/h, saacadiiba 50 km. 50 kama badin kartid, intaasaad ku soconaysaa. waa mar labaad oo aynu rabno inaynu baaskiiladan dhaafno. labadan qof haystaba socda, midkood wakaas uu baydhay, kii labaad ayaa waddada ku jira, gaadhina uu kaa hor imanaya. marka ha isku dayin gaadhi kaasoo xaggaaga hore kasoo socda inaad baaskiil ama qof ama wax kale aad dhaafto ilaa aad waddadoo banaanka helayso. iskuna day inaad xagga bidixda gaadhiga u badiso. markaad soo noqonaysana muraayadda qeybta midigta fiiri, ta dhexe fiiri, bilinkarka shido, sidaas usoo baydh. intaa haddaad samayn weydo imtixaankaaga waxba kama jiraan waay. hadda waxaynu galnay waddo un eebane farbana ama dariiq aanay waddadiisu si toos ahayn oo ayna toosnayn. markaa gaadhiga xoog ha u wadin, isku day inaad number 3 ama 2 ku socoto si aanay baabuurka taayiradiisu dhibaato kaaga soo gaadhin. dariiqa sidan u jajaban waa Forfarstrasse. marka haddii aynu baydhano, waxaa naga rabaa inaynu bidix u baydhno oo aynu bidhbidhaha bidix u shidano. haddii aynu ka baxanana xagga midigta aynu u baxno. bartaa marka aynu taaganahay waa Forfarstrasse. calaamadaas meesha ku sawiran ee dhulka ku sawiran baa kuu tilmaamaysa. hore haddii aad ugu sii socotana waa xaggaynu u soconno. qeybtaas waa qeyb Forfarstrasse. qeybta aynu hore ugu soconaana waa 30. waddada Forfarstrasse markaad ka baxayso, waxaa lagaa rabaa inaad bidhbidhaha u shidato qeybta aad u baxayso. haddii aynu kor ula laabi lahayn xaggii aynu iminka idin tusayeyna, waxay noqon lahayd inaynu bidix u tuurano bidhbidhaha. iminkoynu midig usoo baxnayna midig ayaynu u shidanay. waan kasoo baxnay Forfarstrasse. dariiqan ayaynu soo galnay yar. dariiqana waa dariiq aad u yar oo jajab ah, labada baabuurna aanay si toosa isku dhaafi karin. marka waxaa lagu ogol yahay inaad waddada dhinac ahaan taayirka u dejiso, ka kalena uu saa sameeyo, sidan iminka aan isku dhaafnay oo kale. buundada halkaa inooga muuqata waxaa ku xiga jidkii tareenka. jidkaa tareenka markaad ka gudbaso ama birta tareenka, waxaa lagaaga baahan yahay inaad number 2 geliso gaadhiga ama geerka labaad, bidix iyo midigna iska fiiriso. haddii birta hoos usoo degtana aad birta ka hor istaagto oo aanad isku dayin inaad soo gudubto. calaamada halka inooga muuqato waa stop. waxaa lagaa rabaa inaad bidix iyo midig iska hubiso, laynkaa cadna aad istaagto, bidix iyo midig baad iska fiiriso inay baabuur socoto, kadibna aad dhaqaaqdo haddii aanay jirin wax baabuura oo kugu soo dhow. hadda gaadhi ayaa halkaa kasoo muuqda. gaadhigaas ayaynu fasaxanaa xagga bidixda ka imanaya, kabacdi ayaynu dhaqaaqaynaa. haddii aad la kulanto maalinta imtixaanka calaamada stopta ah, waxaa lagaa rabaa inaad istaagto xataa haddii aanu gaadhi soo socon labada dhinacba. hal mar inaad istaagto ayaa lagaa rabaa, iska hubiso, kadib aad dhaqaaqdo. haddii aad sidaa yeeli weydo, imtixaankaagu halkaas ayuu ku dhammaanayaa, waanad ku dhacaysaa imtixaanka. dariiqan aynu galnay waa dariiq 70. inkastoo ay tahay meel magaalo dhexdeeda, haddana calaamadaas ayaa ku xukumaysa. 70 ayaa ku qoran, speedka ugu badan inaad ku socon karto. wax yar kadibna magaalada ayaynu gelinaa. 50 ayay automatic u noqonaysaa. waxa keliya oo aad arki doontaa calaamada inaad gashay magaaladii, calaamada huruudda ah ee tilmaamaysa inaad magaaladii gashay, waana calaamada halkan inooga muuqata. waa calaamada huruudda ah ee ku qoran tahay magaalada aad gashay ama tuulada aad gashay, tilmaamaysa meel inner orts ah. calaamadahan haddii aad rabto inaad gaar usoo barato, si gaar ah usoo barato, waxaad dib u fiirin kartaa fiidiyoyadii hore ama cashiradii hore ee aynu soo gelinay, adiga oo si faahfaahsan gaargaar u baranaya. marka aad magaalo dhex socoto, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto baaskiil, dad lugeynaya, gaadhi waddada bartankiisa taagan ama baarkin dhinac kaga jira oo waddadaadii qeyb isticmaalay. qeybtii kale ee aad mari lahaydna baabuurtii kaa hor imanaysa ay tahay sida meeshan inooga muuqata. marka adiga ayaa lagaa rabaa inaad taxadir muujiso, aanad isku daydo sida ugu macquulsan inaad baabuurtaan aanad dhib u geysan, ka kaa hor imanayana aanad dhib u geysan, adiga laftaaduna aanad dhib isku geysan. waxaa lagaa rabaa inaad adigu taxadar muujiso, si tartiibana uga gudubto haddii ay macquul tahay. magaalada dhexdeedana waxaa jira ama aad ku arki kartaa fallaaro badan oo dhulka ku sawiran,
kuwaasoo qaarkood bidix u baydhayaan, qaarkood midig u baydhayaan, qaarkood bartanka marayaan. sida halkan oo kale midig ayaynu u deganaa marka aynu rabno ekiya ama meeshaas aynu ku baydhano inaynu galno, midigta ayaynu ka qabsanaynaa. haddii aad hal mar qaldanto oo aad line qaldan qabsato, ha isku dayin inaad halkaa kasoo noqoto. halka aad ku qaldantaad ku soconaysaa, kabacdi baad soo saxaysaa inaad mataqaanaa waddadaa dib ugu soo noqoto iyo in kale. halkan markaad marayso waddada ayaad haddana bidix u gelaysaa, waayo halkan waa xidhan tahay. fallaadha bidix u baydh ayaa ku tusinaysaa ilaa iyo mataqaanaa aad ka gaadhayso meesha aad rabto. intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkeenii koobnaa ama muuqaalkii koobnaa ee aynu ku kala baranaynay dariiqyada qaybo ka mid ah. waxaynu soo diyaarin doonaa fiidiyoyo kale oo xiise leh oo ku saabsan dariiqyada iyo qaabka loo maro. fadlan nagula wadaag commentigaaga meelaha aad rabto in laga soo diyaariyo ama waxyaabaha aad u baahan tahay inaad mataqaanaa ogaato. waad mahadsantihiin dhammaantiin.